wasiirada wasaaradaha biyaha iyo beeraha maamulka gobolka Togdheer ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay riig biyood laga hirgelin doono xaafadda 27 May ee magaalada Burco waxaana riig biyoodkaasi hirgelinaysa wakaalada biyaha Burco ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay siduwaha wasaaradda biyaha iyo maareeyaha wakaalada biyaha Burco Injineer Cabdixakiin Maxamed Maxamed maanta in halkan bishu iyadoo ay tahay 12 aynu halkan isugu nimaadno goobtan dhagax dhiga ah ee ceel biyood oo magaalada dhinacan hawdku aanay ceelal kala hayn ee kii ugu horeeyay noqonaya insha Allah biidnaahi kariim waxa aanu ka rajaynaynaa ilaahay inuu biyo badan oo khayr qabo oo macaan oo inaga siiyo maariyaha hore uga jirin wax biyahi oo riigag lahayn waa xaafad lagu soo ururiyay dadka danyarta magaaladuna aad bay u korodhay markii aanu anagu wakaalad ahaan asaas garaynay maamul ahaan waxaanu isla garanay in halkan looga qodo biyo barasaabka gobolka Togdheer iyo wasiirka wasaaradda beeraha Axmed Muumin Seed ayaa ka hadlay munaasabadda dhagax dhiga riig biyoodkaasi waxaana hadaladoodii kamid ah sida tan inay halkan inagu soo booqdaan laba xubnood oo kamid ah golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii inoogu yimi arrin wax qabad sidii caadadu ahayd oo ku saabsan dhinaca biyaha iyo beerahaba wasiirada waa ku soo dhaweynaya gobolka Togdheer waanan ka mahadnaqayaa runtii heeganka ay u yihiin qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan gobolkeena Togdheer ee wax qabadka firfircoon ee inta badan la qabtaan halkan ay maanta taaganahay waxa laga dhagax dhigi doonaa riig cusub oo ka qayb qaadan doona horumarinta biyaha gobolka Togdheer baahina tiri doona dhammaan qaybo kamid ah magaalada Burco halkan dhagax dhigno iyadoo laga dhagax dhigo riig aynu rabno inay dadkeena masaakiinta ama dadka deegaanka halkan ay biyaha ka cabaan oo runtii waa arrin lagu farxo waana arrin u muhiima shacabweynaha gobolka Togdheer degmada Burco saadayaasha ka dhawaajiyeen waad baan ugu mahad celinaynaa mulkiilaha halkan bixiyay Dr. Muuse oo ah meeshii saddexaad warbixinta saaka qolada wakaalada biyo ay nagu siiyeen waa meeshii saddexaad u bixiyay ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka biyaha Soomaaliland Saleebaan Cali Koore waxaan ugu talagalay ceelkan marka ugu horeysa inuu dadka danyarta iyo dadka aan magaalada biyaha helin ay biyo si toos ah u gaadhaan wuxuu noqon doonaa ceel aad iyo aad u hubaysan oo u buuxa qorshihiisu u buuxaan haday tahay mid solar iyo haday tahay motor iyo hadii ay tahay tangi iyo intaba ceel iswata ayuu noqon doonaa waana ceelaan ugu talagalay inuu tusaale u noqdo si ceelasha kale loogaga faa'iideysto sidaas la mid ah waxaanu isleenahay waa waqtigii ku haboonaa riig biyoodkan laga hirgelinayo xaafadda 27 May ee magaalada Burco ayaa mid ay baahi weyn u qabeen dadweynaha xaafadaasi Axmed Jaamacadan Axmed Digiro telefishinka caalamiga Somali Cable Burco.